hay'adda maxalliga ee Soyda ayaa magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ka furtay tababar loo qabtay daneeyaasha xuquuqda aadanaha ee magaalada Berbera. Ujeedka tababarkan ayaa ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa loona ilaalin lahaa xuquuqda hablaha ka shaqeeya guryaha ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Waxaana tababarka ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socda hay'adaha dawladda iyo hay'adaha ka shaqeeya magaalada Berbera. Ugu horeyntiina waxaa tababarka ka warbixiyey Faysal Cali Yuusuf, gudoomiyaha ururka Soyda, Caaqil Ismaaciil oo ku hadlayay afka cuqaasha magaalada Berbera, Farxaan Maxamed Xasan, isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo qoyska iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil. Soyda waxaan filayaa inaanay maanta idinku cusbayn. Organisationka Soyda runtii waa organisation Somaliland goboleedyada oo dhan ka shaqeeya, waana institution runtii muddo dheer soo shaqaynayay, si gaar uga shaqaynayay xuquuqul insaanka, si guud xuquuqul insaanka si gaar uga shaqaynayay arrimaha dumarka iyo carruurta oo runtii ah bulshada inta ugu nugul ee inta badan dhibaatada ama problemska ugu faraha badan ay ku dhacaan. Marka runtii mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda ay soo waday muddo dheer, waana mashruuc runtii ku saabsan xuquuqda hablaha guryaha ka shaqeeya ay leeyihiin, oo runtii qof kastoo halkan fadhiya ama qof kastoo inaga mid yihiin uu garan karo duruufaha hablahaasi la nool yihiin iyo dhibaatooyinka haysta marka ay ku guda jiraan waqtiyada shaqada. Marka sababta maanta tababarkan ku saabsan waxa weeyaan capacity-ga ama fikirka aad ka qabtaan maxay hablahaasi duruufo intee leeg la nool yihiin, dhibaatooyin intee leeg ba haysta. inagu maadaama inay bulshada intii ugu muhiimsanayd ee la door biday inay bulshada iyaguna kusii xidhan yihiin fariimaha ay halkan aynu ka sheegno ay sii gudbinayaan, waxaynu u baahanahay inaa markaa idinkuna aad qayb ka noqotaan mashruucan. runtii waxa weeyaan hablahaas dhibaatooyin badan ba haysta, duruufo badan bay la nool yihiin, xaquuqaadkooda lagu xadgudbaa, dhibaatooyin badan ba haysta. waana laga yaabaa dadka qaar inay maxaan ku raday bini'aadamku isku mid maaha, iyaguna dad si fiican hablaha ula dhaqmayna jiraan. hablaha laftigoodana dee dad badan oo ka cabanaya inay jiraan, waxa qof waa bini'aadan, laakiin majority markaynu eegno duruufo badan bay la nool yihiin, dhibaato badan ba haysata. mana aha hablaha haddii xadgudub kastaa ku dhaco dhibaatada haysata ama dhibta ku dhacda sheegta. marka waxaynu u baahannahay inagu inaynu maadaama nahay bulshadii aynu kasoo jeedno inaynu hablaha aynu ka wacyigelino qof kasta oo dhibaato ama u geysanaya wax aanay markaa maxaan ku raday hablahaas aanay xaq lahayn. marka runtii mashruucan waxaa maalgeliyey oo aad iyo aad iskaga kaashaday hay-adaha halkaa ku qoran oo hay-adda Surat Relief iyo Forum Sif, oo labada hay-adoodba fadhigoodu uu yahay Sweden, laba hay-adood oo Swedish ah, laakiin ururka Soyda ayaaba runtii mashruuca fulinaya. gobollo badan buuna ka socdaa mashruucani oo ah gobolka Awdal iyo gobolkan Saaxil iyo Gabiley, saddexdaas ayuu ka socdaa imika iyo gobolka Maroodi Jeex. arrimaha tacadiga oo wax jiro deetna arrimahaas oo ka shaqaynayaan. innaguna halkan waxaan isugu nimid inaan la shaqeyno deetna arrimahan waxay halkan tababarka ka qaadanayaan deetna bulshadeena ku celin. hablahaas aad bay u dulman yihiin, waxa weeye way ku dulman yihiin oo shaqada way ku dulman yihiin. marka runta loo eego deetna inta badan inkastoo dadku dee ay fara badan yihiin nooc walba ay leeyihiin, haddana inta badan way ku dulman yihiin hablo xagga shaqada. iyagoo inoo shaqeynayno dagaalaynaa, mushaharkaynu ku yaraynaynaa, cagtaynu wax ugu sheegaynaa, ishaynu wax ugu sheegaynaa, farahaynu ku fiiqfiiqayno iyo maxay ma fahamtid. waxaasoo dhan waa tacadid inaynu ka daynaa deetnaan bulshada ku celinaynaa. ururka Soyda oo in badan ku qaada horumarinta bulshada iyo aadamahaba waa mid aan ku bogaadinayo oo aan leeyahay maanta waxaa asiibteen halkii loo baahdaa. waayo wasaaradda shaqooyinta markii ugu dambeysay waxay ahayd gabadh ka soo cabatay qof ay u shaqaynaysay, talaabo fiican bay ka qaaday, xuquuqdii bay uga qaaday, iyada shaqaysiisay. marka waa wasaaraddu mar walba diyaar inay tahay in markaad aragtaan cid tacaddi ku samaysa hablaha shaqaalaha ay soo gaarsiisaan oo aad fariintan soo gaarsiisaan. adigu waxa weeye wixii ay xuquuq leedahay wada ilaalin doonaa, wixii ay xaq u leedahay laga qaadan doonaa, qofka ku gafayna sharciga la marsin doonaa. Sadiq Arab Sulaymaan, telefishinka caalamiga Home Cable TV, magaalada Berbera. shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile. si aad uga mid noqoto guulaystayaasha abaalmarinta, raac tallaabooyinkan: ku shubo $1 ku hadal ama internet data. macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 90 cisho ee soconaysa abaalmarintani. macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga idahab. ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guusha aad u dhawaato. wixii faahfaahin dheeraad ah
kala xiriir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel